السلام عليكم. 10 sano ka hor maanta oo kale ayay ahayd markii ugu horeysay ee aan Uganda imid. Markii 10 sano lagu dhaho waxaa laga yaabaa inay isdhexdid waa waqti aad u badan, laakiin waqtigu wuxuu badanaa mar walba markii waxba aanan lagu qabsanin. 10 sano ka hor aragtidayda iyo maanta farqi badan aan nolosha noo dhaxeeyo. Waxaan rabaa marka dhalinyarada cusub ee wadanka ku cusub ama qurbaha dhan ku cusub qodobo muhiim ah inaan u sheego oo qofka haddii uu ku baraarugo ay ka saacidayso in uu nolosha qurbahana la qabsado horumarna uu sameeyo. Qodobka koowaad ee aan rabo dhalinyarada inaan kala hadlo waxay tahay wadanka markii ay imaatay ama Uganda imo ama Nairobi Kenya imo ama wadanka la tagay waxa uu la dhaqantaa wadankaagii oo kale inay imaatay. hasnihin meesha musaafira ku tahay ama sanad ama bil ama dhowr bil kadib waa ka tagaysa dad badan oo loogaga sheekay waxa kaliya og tahay waxa waay oo hubantiga aad u haysatid inaad wadanka joogtid waqti xaadirka waxa kale og tahay inaad dhima doontid laakiin xilliga aad bixi doontid ma ogid wixii doonaha lagu sheego hal lagu dhaho sanad 2 sano wax kadib aad bixi ma hubtid waqtiga aad bixi doontid sida awgeed noloshaysan ka joojinin waa bixi doontaa wax badan oo aan qaban lahayd haday tahay waxbarasho wax baro haday tahay inaad guurstid guurso haday tahay inaad shaqayso wixii ka soo horbaxa oo aan qaban lahayd qabo excuse marna aysan noqonin wadankan musaafira ku tahay waa ka tagay. qodobka labaad iska dhaaf saaxiibada badan oo aad sameynaysid qurbaha markaa soo gashid dad kala duwan ugu imaan doontaa waxa ugu imaan doontaa group shaah ku wadaysa galab walba ku dhaheeso iska soo sheekaysanayna kuwa banooni ku kaxeenayo waxyaabaha iyo dadka tirada badan oo abuuranaysid waxay dilayaan waqtigaaga noloshaada dhan waxay ku dhameyn doonaan entertainment saysan sida u dhicin marka wax saaxiibo uma baahnid inaad samaystid waxa u baahan tahay kaliya nafsadaada inaad la saaxiibtid ahdaaf iyo waxyaabo qoratid dabaqdidna. qodobka saddexaad wuxuu yahay waxaa laga yaabaa wixii aad raadinaysay wax ka fiican inaad heshid oo wadanka maanta ay maatay aad ka heshid. tusaale waxaa laga yaabaa bixitaan inaad raadinaysid oo aad leedahay dibadda aad sababta ugu muhiimsan oo dibadda loo aadayo waa in dhaqaale la sameeyo. wadankan ay maatay waxaa laga yaabaa 5 jibaar dhaqaalihii meesha u socotay aad ka sameyn lahayd inaad ka samaysid. sidaa awgeed focuskaaga kaliya uusan noqonin inaad baxdid focuskaaga ha noqdo inaad isku hubeysid xirfad wax baratid iskuna daydid meesha aad joogtid isbedel inaad ka sameyn kartid. waa mahadsantihiin.